Assalaamu calaykum. Wallaahi waa arrin naxdin badan. Wiil yar oo lagu dilay Somaliland. Sababta loo dilana ay baraha bulshada dhex wareegayso in calanka Soomaaliya lagu arkay. Ayaamihii hore qofkii calanka Soomaaliya lagu arko liin ayaa la cabsiin jiray mise xabsi ayaa la dhigi jiray. Laakiin hadda hawsha way isbedeshay. Waa arrin aad iyo aad u xun in qof calanka buluuga qabo la dilo mise dhibaato loo geysto. Waxaa yeelay Soomaalida waa hal. Baaritaan ayaan sameynay in mudane madaxweyne Muuse Biixi uu arrintan wax ka og yahay. Laakiin dadka waxay u badiyeen inuu asaga amray qofkii calanka buluuga lagu arko in la dilo. Wallaahi waa arrin la yaab leh. Laakiin muuqaalkan daawo ilaa iyo dhammaad fadlan hadda channelka cusub tahay subscribe inoo saar muuqaalka like saar si uu meel dheer u gaaro. Baraha bulshada waxaa dhex wareegayaa in wiilka calanka buluuga dartiisa loo toogtay. Wallaahi waa arrin aad iyo aad u xun. Markaas muuqaalkan ayaan daawanaynaa kadib ayaa ogaanay sababta wiilka loo dilay iyo madaxweyne Muuse Biixi miyuu arrintan wax ka og yahay mase asaga miyaa amray dadka. Insha Allah daawasho wacan. إنا لله وإنا إليه راجعون ويلكان أدو جيدان oo 15 sano jirka ah ay Somaliland caawa ku daldashay bartamaha Somaliland isla markaasina waxa uu ku labisnay calanka buluuga ah ee Soomaaliya waxa ayna ku haysteen calanka buluuga maxaad u xiran tahay sheekadu markaan waa ay isaga tagtay xabsi iyo qof ayaa tal xiraan la soo deynaya waxa ay maraysaa dil toogasho oo isla markaasi sujuud xabad loo isaga dhufto ugu yaraan waxa ay ku dhufteen 10 xabadood iyaga oo ku shaqshaqay isla markaana halkaasi dhigay maxaad u wadataa calanka buluuga ah halkaasina ku waray haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa caawa Soomaaliya bartankeeda ka dhaaranaya waxa ayna sheegayaan qof Somaliland ka yimid in Ilaahay indhaha u saaro si ay iyaguna u daldalaan dad badan oo Soomaaliyeed ayaan caawa seexanaynin oo caraysan kuwaasi oo ku dhaartay in qof Somaliland ka yimaada kaliya Ilaahay indhaha u saaro dad badan oo Somaliland ka yimid oo Soomaaliya ku dhax nool caawa waxay isku qarinayaan xaafadaha kuwaasi oo ka cabsanaya in la dilo waxa ayna ku dhaarteen dad badan oo Soomaaliyeed in Somaliland sida ay ku dhaqantay ay iyaguna ula dhaqmi doonaan isla markaana dad badan ay ku tooga doonaan live isla markaasina ay ka soo duubi doonaan video waxaan halkan kugu soo qaadan doonaa dad badan oo isla markaasi u dhaartay Somaliland oo Soomaaliyeed iyo Somaliland oo ku dhaqantay fal aad iyo aad u argagax badan iyaga oo toogtay wiil arday ah isla markaana wax baranayay gudaha Somaliland wax ka baranayay isla markaana shaqshaqay oo baas ku shaqshaqay waxa ayna ku dhufteen ugu yaraan 10 xabadood balse intii aan halkan kugu soo gudbin fadlan waxaanu ka codsanaynaa si dhagartan Somaliland dadka Soomaaliyeed ay ugu maleegayso ay dadka Soomaaliyeed uga digtoonaadaan in videogan aad la garayso oo muuqaalkan committee ka soo dhiibato sidoo kalena channelkan qarsooni media aad gambaleelka u furato haddaba saaxiibayaal arrinkani waxa ay ka turjumaysaa fal argagax iyo la yaab leh oo waxaanu u wada jeednaa wiilkan yarka ee masaakiinka ah in Somaliland bartankeeda lagu toogtay amar ka soo baxay madaxweynaha Somaliland ee mudane Maxamed Muuse Biixi isaga oo isla markaasi sheegay in la toogto isla markaasi wax calanka Somaliland oo dhan wata isla markaana lagu shaqshaqo baas haddaba maxay tahay madaxweynenimadan uu sheeganayo isla markaana dadka Soomaaliyeed uu leeyahay hal la toogto miyaysan ahayn fal argagax iyo la yaab leh haddaba Somaliland ayaa dhaar waxa ay ku martay qof walba oo calanka Soomaaliya wata in aysan xiri doonin isla markaana ay tooga doonaan qofka cisho doontana aan la arkinin haddaba adigu Somaliland ma ku nooshahay oo cabsidaasi walwalka iyo farada badan ma ku haysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan oo sidoo kale boorame lagu xiray iyo sidoo kale Somaliland oo dhan dhamaanteed ayaa waxa hadartan ay ku dhaaranayaan inay ka soo bixi doonaan xabsiyada iyadoo oo tiirka geey doona isla markaana si dad kale inay dileen camal u tooga doono haddaba adigu naxdintaas iyo argagaxaas iyo falkaas la yaab kale maxaad ka leedahay ma ku faraxsan tahay Somaliland in ay toogtaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana calanka buluuga ah kaliya ay ku toogtaan qofkii calanka buluuga xirtana ay ku shaqshaqaan xabsi haddaba adigu hadii aad jeceshahay nagu soo commentiga hadii aad
nacab tahay in ay sameeyaan Somaliland falkaasi argagaxalana sidoo kale nagu soo qor commentiga waana ku tixgeli doonaa adigu reer Somaliland ma tahay oo ma aaminsan tahay Somaliland ma ku nooshahay oo dadka Soomaaliyeed calanka buluuga ah ku dhax qaata ma jeceshahay in la laayo hadaba adigu waxa tahay qof sawir ah isla markaana neef Ilaahay ah waxaana ka turjumaysaa fal la yaab iyo argagax leh isla markaana mid tihid qof islaan iyo daacadnimo ay ku jirto hadaba saaxiibayaal waxaan wada ognahay inaan nahay ummad Soomaaliyeed isla markaana islaam ah markii laga soo tago Soomaalinimadana islaam ah qadiyada iyo gooni u goosadka Somaliland waxa ay gaareen heer ay toogtaan dadkeenagii Soomaaliyeed isla markaana ay ku shaqshaqaan baas qofkii Somaliland jooga isla markaana qalbiga ka jecel Soomaaliya ee isku daya inuu calanka qaato waa ay tooganayaan oo waxa ay ku dhaarteen inay baas ku shaqshaqi doonaan hadaba falkaasi argagax leh ayaa hadartan soo yeeraya isla markaasi markii ay toogteen wiilkan yarka ah oo aanu sawirkiisa u wada jeedno waxa ayna sureen geedka iyaga oo sheegay qof walba oo calanka Soomaaliya ee buluuga qaata in ay saas u gali doonaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadaba u soo ducay wiilkan masaakiinka ah ee Soomaaliyeed ee isla markaasi dhiganayay iskuulka halkaasina lagu toogtay oo lagu sameeyay falkaani argagax leh balse waxa ay ogaad doonaan dadka jooga Somaliland iyo sidoo kale dawladdu in aan arrinkan la isaga hari doonin isla markaana dad badan oo Soomaaliyeed ayaa caawa dhaaranaya oo xaafadaha ku jira waxa ayna sheegayaan in ay dili doonaan qof reer Somaliland isla markaana ay u aari doonaan ayaguna waliba waa ay qariyeen oo tiirka markii ay ku xirayeen waxa ay diideen in camera la soo qaato balse ay camera ka soo duubi doonaan iyaga oo geedka ku xiraya isla markaana tooganaya si toos oo leef ah halkaasna ku tooganaya waxaan wada ognahay calanka Somaliland ee uu ku qoran yahay tawxiidku in lagu gado magaalada Muqdisho isla markaana qof walba ay xorriyad u leedahay gacantana ay gashanayso qof walbana aan laga celinin halkaasina lagu la dhex mushaaxo dadka Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed ee jecel Somaliland ay halkaasi ku qaataan balse Somaliland ayaa dhamaanteed la tusi karin calanka buluuga ah waad ku dhax qaadan kartaa calan Puntland waa ku dhax qaadan kartaa mid Djibouti waad ku dhax qaadan kartaa mid Galmudug balse kuma dhax qaadan kartid mid buluuga ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya oo dhan isla markaana Soomaali oo dhan ka dhaxeeya kuma dhax qaadan kartid waxa ayna u arkaan cadawga koobaad calanka Soomaaliya waxa ayna diidan yihiin aqoonsanaantaas la aqoonsan yahay oo calanka buluuga ah la aqoonsan yahay waxa ayna diidan yihiin isla markaasi dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo wixii taageeraysan calankaasi buluuga ah dad badan ayaana sidoo kale gumaysi ku haystaan Somaliland oo calanka buluuga ah jecel balse iyagu ay gumaysanayaan oo leeyihiin ma jeclaa kartiin hadaba adigu ma jeceshahay calanka buluuga ah oo mar walba ma jeceshahay inaad garab ku qaadato oo aad xirnaato oo aad gacanta gashato hadaba hadii ay tahay jawaabtaadu ha subscribe sar channelkan lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan rabaa halkan inaan tacsiib tiraanyada uga diro walaalkeena caawa laga geeriyooday magaalada Boorame Ibrahim Shukuur Ibrahim kaasoo ahaa arday nala dhigta jaamacadda Xamuud waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo dhammaan familigii oo ugu horeyso hooyo Canab Ibrahim waa naga wada dhintay Allahumma naxariisto alla naxariisto jannaha siiyo waxaan rabaa inaan ku hadlaya magaca unionka ardada reer Puntland ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee Boorame in Ibrahim uu ahaa arday maanta galay imtixaankii noo socday ee jaamacadda Xamuud kalinkii dambe Ibrahim inuu ahaa arday ku soo ilaaway mobilkiisii jaamacadda uuna u laabtay markuu magaalada yimaaday uu taleefankiisii tagay markaasna ay ahayd xilli aan jaamacadda loo ogolay inay cidi gasho sida la adligeed waardiyihiina isagu tusay idhikaarkii kadib ay isdhaaf dhaafeen inkii waardiyaha ahaa jaamacadda joogay halkaa lagu dilay Ibrahim isaguna caawimeedkiisa uu yaal isbitaalka weyne magaalada Boorame waxaan rabaa inaan halkan mar labaad tacsi uga diro dhammaan familigii waalidiintii Ibrahim Shukuur annaga dhammaanteen waa naga dhintay Ibrahim annaga dhammaanteed waa naga dhintay family kaliya kama dhiman ruuxaanta ardayda reer Puntland oo dhan buu ka dhintay la samariyay imaan naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aad baa mahadsantihiin